السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخير تقيبها يقيانا قبل من البعض شوكتان ورعصب ودقدق وحجيبة عيدما جانبا ولو ريقيا أمنيقا مقالة الدوسمريبي وديار الله فيلا يويني نرقود ونقصوا جارية يا شيئين عيدما ديرادها وكتر سن عمسهم لقينا يوم مقالة الدوسمريبي عاصمة قلم القستايد عيدما ديرادها يا أكابي دودا عيدما كلا وكسوغا مقالة الدوسمريبي وحالا لزوج شيئين ساعدها فود نقصوا حيا أي قاريا مقالة السيا عيدما أيا مقالة كالدق دونا hubkooda waxa ayna si rasmi ah ula wareegi doonaan amniga iyo gacan ku haynta goobaha muhiimka ah. Ciidamadan ayaa ka qayb qaadan doona xaqiijinta amniga magaalada Dhuusamareeb oo uu ku wajahan yahay madaxweynaha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigiisaba. Magaalada Dhuusamareeb waxaa hadda ku sugan wafdi isugu jira wasiiro iyo xildhibaano hordoon u ah madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamulka Galmudug. Madaxweynaha ayaa ka qayb galaya kulan lagu dhameystirayo heshiiska maamulka Galmudug iyo ahlu sunna oo lagu dhameyn doono magaalada Dhuusamareeb. Geesta kale waxaa amniga magaalada Dhuusamareeb iminka gacanta ku haya ciidamo ka socda dawladda walaalaha Ilmahaye Jabuuti kuwaasi oo la sheegay inay wax ka xaqiijinayaan ammaanka magaaladaasi. Haddaba barnaamijkan xiisaha leh hadda soo kordhay waxaana kala sheekaysanay khabiirka barnaamijkeena ee Muqdisho TV Axmed Jaziira oo in badan barnaamijyada siyaasadda noo falanqeeya. Warbaahintii Muqdisho TV arinta aad ka hadlaysaan waa arin xaqiiqo oo jirta weeye. maxaa yeelay magaalada Dhuusamareeb sidaanu hore u sheegnay waxa weeyaan magaalooyinka weli amnigooda aanu sugnayn oo maleeshiyada ay xukumaan weeye waa maleeshiyadka halsuuna xukuma weli gacanta dawladda kuma jirto rag dawlad matalana meesha ma joogaan marka in madaxweynuhu uu ka taxadaro amnigiisa uu halkaasi keeno ciidamo ajaanib ah oo amniga suga waa wax loo baahan yahay maxaa yeelay ragani weli uma bisla siyaasad dawladeed ama bisla dhaqan amni iyo ixtiraam dawladeed dadka meesha jooga ilaan waxay ku shaqaynayeen mabaadi suufiye ku shaqaynayeen oo taabacsan rag gaar ah oo ku shaqaysan jiray dadkaasi ayaga ayaa dhexdooda islayn jiray dagaalo ka dhaxeeyeen oo goor dhaweyd la heshiisiiyey oo weli heshiiskoogu qabiye yahay marka in geela xaaf u dhiisa uu tago magaalada Dhuusamareeb ayay amni u baahan tahay marka in madaxweynuhu tago ayadu waa ka sii daran tahay marka in ciidamo ajaanib la wareegeen waa mid xaqiiqo dadka diidaya mar walba daawada channelkeena oo ka midiisana waxaan leenahay diida ama iska daaya waxani waa wax jira weli waxa weeye processkii dawladnimo hadda la dhisaya meelaha qaarkood maamul goboleedka Puntland oo kale wuu soo jiray in badan ay soo dagaaleen dhibka idinka hadda ku jirtaan way ku soo jireen hadda way ka sii baxayaan xoogaa weli waa lagu dambeysaba adinku laakiin waxa weeye from starting hadda ka bilaabaysiin hadda starting kadib soo marka inaad dadkaasi camal iska dhigtaan shacabku way xamaasaysan yihiin way faraxsan yihiin madaxweynuhu way rabaan laakiin dad kale waxaa jira oo aan waxaaba doonayn ha ahaado ganacsade ha ahaadee nin dana shisheeye u shaqeeya ha ahaadee nin sidiisaba iska coqdadaysan xanaaqsan oo intaasoo dhan bay isugu jiraan marka in marka madaxweynihii la ilaaliyo magaalo oo cajiiba oo wiligeeda aanu amni dawladeed gaarin laga soo bilaabo from 91kii ilaa hadda marka in magaaladaasi lagu degdego way halis marna ay qabsaneen al-shabaab marna ay Ethiopian qabsaneen marna halsuuna qabsaneen marna qawaayla ka isku dagaalayeen ninka degmadaasi u dhashay ee lagu xiray magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Shukuur waa taqaanaan waa raggiisa waa ragga ka soo jeeda meesha weeyaan marka ma u naxariisanaya nin gurigiisa lagu weeraray oo qarandamis ah gurigiisa loogu tagay imaaraadka miyay ka gambanaysaa imaaraadka soo daldiraysa Soomaaliland waa raggaasi waa xaruntooda marka madaxweynuhu waa ku saxsan yahay adinkuna haddaad ku dhaliilaysaan ama fikrad ka doonaysaan waa nala soo wadaagi kartaan laakiin runta ayaa sidaasi ah saaxiibayaal dhulkiina gaari madaxweyne kuma mari karo diyaarad baa lagu marayaa ciidamo shisheeyana madaxweynuhu way ilaalinayaan wax intaas ka duwan hadda hayso saaxiib comment noogu soo sheeg xaqiiqadana noo soo gudbi sawirkaaga xataa noo soo dir oo aad meesha ku sheegaysid anaga soo daynayna waa maasantahay